qofka dad u taraxinaysa iyo hadda kor ugu tuurisay si hogga u tuuray dadka dheeriin hadii ku dhayo tural oo kale oo soo taraxin kartaa laakiin mar walba inaad isku soo dhaweynaa isku day ana soo dhaweynin madaxa waxaan u soo dhaweynin Isxaaq Kerow Aadan Cali oo magacyadiisa afgarashadu yihiin Cabdiladiif Cumar Faaruq iyo Cabdiraxmaan 2014 ayuu isaga tagay tuulada Dudumaale oo u dhow degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool si uu ugu biiro Al-Shabaab safar dheer oo dhulka kadib waxa uu tababar kula qaatay Boosh Madiino 145 dhalinyaro ah oo laga soo aruurshay gobolada dalka Dugle Owdigle Shaam Bariire Baraawe Qoryooley Sabiid iyo Caanoole iyo Aqbari Weyn Golweyn iyo Afgooyo oo dhammaan ka tirsan Shabeellada Hoose ayuu waqtigiisa ugu badan ee Dhuumaaleysiga ku qaatay marka laga reebay inuu Hiiraan qayb ka ahaa argagixisada weerar gubid ah oo ay ku qaaday kolonyo gaadiid ah oo ganacsato raashin ugu rarneed Bakool kadib markii ay iska diideen baad lagu daharay sunnada diinta Islaamka anaka alwa shibay marka baad abadisi loo shibay marka horti markii laga qabsaday ay buuray fuulay marka buurta looma kori karo hada kortoonka soo degitaankeeda inta ka saay ku qaaday buldiino waatana ay horta soo socday marka xaliri laga soo laabto boorta la gubay ay gran baarta marka intii la gaarto waxay noqotay 14 gaaray noqdeen intii la gaaray mid waa gum waana daraad oo shay waa gum waay walaga nooy jantada marka shada waa boodeen walaga nooy shada lagu shibay shada kaliya ba laga soo laabtay jantada waa laawday koon ma la gaarin oo laga soo aray markii lagu waayay shada ku shibay shirka ma taa furto shada ku shibay kuraas lagu fadhiyo jantay ku taana marka kuraas matoora marka la gubanayaan wal raashin is gaareen intii uu ku jiray jabhadnimada iyo weerarada jidgalka waxa uu suuro gashay inuu noqdo horjoogo kumeel gaar ah waxa uu joogay jabhad marka katiibada 3 jabhad way marka rigi meelahan jooga fasafasahay rigi hadii ma go'yihiin kuwa loo dhiibtaa yani marka jabhad mid kamid liiday madeed waxa raysanayd katiiba ku raysanayd mid liidibay laakiin dhagartiisa oo daran darteed iyo sida uu la dhaqmo reer guuraaga iyo safarleyda jidkan dheer mara waxa ay u suura gelisay in loo tababaro dilalka gaadmada ah ikhtiyaalaad iyo tuurida bambo infanta meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee loogu talagalay adeegidooda taas waa ka faa'iiday marka dadka si loo dilaa dadka kaga sheekeeyo qofan waba socdaaba ma ku jeedo kaasoo kale waa fursad laakiin qofka ku soo fiirinayo oo kale إنها كلهنا وأنا أكتي سمرة هذه كلاش سوبها وفيرنا يكون مشغول أكيد بس كبر جيسد ما كان نافتي وكسول لعنا هذا كروس وجالس كل جراه وفك السعودنا مروا بنا قدر كمرتنا غنا وفك هرتس كنا سو بعيس سواء كان وران وفك فيرنا إن بحاش الله صباح وفك سو كوجيدين بقول كريه وبعدي بحاش قريس وتو قري وتو ما سو قرينا هنا ما بيقولوا هذا كاسو كله marka taas way soo baray Axmed Cumar Cali oo la dilay 22 January sanadkan ayuu ka qayb noqday Kerow waana dilkii ugu horeeyay ee weedu ka fuliyaan isaga iyo laba kale oo si wada jira u howlgalayeen Kerow waxa uu sheegay sababta ay uga tanaasuleen isticmaalka bastoolada inay tahay tubta amni oo uu sameystay taliska booliiska gobolka Banaadir taasi oo sababtay in koob badan oo saaxiibadiisa loo diro hoyga dambe aakhiro bastoolad macnaha shaqada ma yaalina in la soo diyaaray rabtaa dad lagu qabtay rabtaa marka qabashada noo badnayd marka qofka bastoolad wato wala dareema marka sababaas dhammaan jiray marka in bastoolada lagu ugaarto in dadka waraasto in lagu soo diyaar labadaas way bastoolada waxaan soo diyaarin ma loo sheegin kaasan ahayn aniga ma baraasin jirin marka ma meesha baaburta wareegaysay marka dadkii la dareemo oo la qabanayo marka shaqada ku roqo lagu dhaxo marka hada ku dhacdo oo dhawaato marka bambada in la hadurta lagu mashquulay wallahi bambadaas markani ku shaqaysanaya tirabama uu ku tuuray meelo kamid ah degmooyinka Yaaqshiid Boondere Shibis iyo Wadajir ugu dambeyn nagartiisa argagixisanimo laanta horseed ee degmada Yaaqshiid ay ku soo idlaatay kadib markii uu bam kamid ah 10kaasi ku geeriyooday Allah u naxariistay Faarax Cabdulla Cariif oo kamid ah ciidamada amniga sidaasna ay ciidamada amniga ku soo qabteen Isxaaq Kerow May sanadkan
يعني تومبا ما توري سغال وقرحين حالنا واكتبتي 25 bishan ayaa si kama dambaysa loo dhageystay dacwad soo martay dhammaan habraacyadii loogu talagalay hanaanka cadaaladda. ugu dambeyn maxkamadda ayaa maanta go'aan ka soo saartay sida uu ku dhawaaqay gaashaanle sare Xasan Cali Nuur Shoote gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida. markii ay aragtay maxkamaddu cadeymaha dambi muujinta ah oo la hor keenay oo ay ka mid ahaayeen cadeymaha laga qoray maragga qiraalka laga qoray eedeysanaha xaashida cadeynta dhimashada iyo sawirrada marxuumiinta kale ah Faarax Cabdulla Cariif iyo Axmed Cumar Calasow iyo haraaga kursiga uu ku fadhiyay marxuum Faarax Cabdulla Cariif sawirrada laga qaaday goobihii uu bamgacmeedka ku tuuray eedeysanaha marka ay dhageysatay maxkamaddu doodii u dhaxaysay dhinacyada kale ah xeeryaalaha guud ee ciidamada qalabka sida iyo qareennada difaacaya eedeysanaha sidaa darteed maxkamadda waxa uu cadaatay in eedeysane Isaaq Keerow Aadan Cali uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Faarax Cabdulla Cariif cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa uu furan racfaan wabillahi tawfiiq. Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka Muqdisho.